dalka Uganda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay buug loo bixiyay han iyo higsi wariyaha Cabdinaasir Daacad ayaa faahfaahinta warkaasi Kampala nooga soo diray kulankan oo lagu daahfurayay buugan oo loogu magac daray buugga haweenka Soomaaliyeed ee han iyo higsi kaasi oo qortay qora fadumo oo lagu qabtay magaalada Kampala xarunta wadanka Uganda waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen konsulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Jibril Afyare gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalkan aqoon-yahano odayaal laqameed iyo marti sharaf kale aqoon-yahan Maxamed Cabdiqaliif iyo Yusuf Xasan Abgaalo gudoomiyaha rugta qorayaasha Soomaaliyeed ee dalka Uganda oo kamid ah xubnihii ka hadlay kulankan ayaa si isku mid u bogaaday qoraaga buugan fadumo waa buug han iyo higsi micne weyn ku fadhiya waxaana qoray inan Soomaaliyeed oo muujinaysa han iyo higsi waxyaabaha wax lagu eego waxa kamid ah qofka marka mikrofoonka loo dhiibo ama uu qofku wax qoro waxa leega waxa uu qorayo iyo isagu ma isleeyihiin way isleeyihiin runtii fadumo waxa weey maxaan karo waxay ku dhiiratay inay noqoto qora wax nicna ku soo kordhinaya bulshada fadumo waxay isku dayday inay samayso ama ay ka gudubto caqabado badan oo ay inta badan dadka hamiga qoraanimada leh inay maxaan ku raahdaa ay qoraa ku noqdaan ka hor istaaga iyadu way ka gudubtay aniga fadumo ehel dhow baan nahay oo maxaan ehel ku nahay labada iyaduba qoraayaal baan nahay walow aan ku kala duwannahay wax yaro ninaan waa maaragtay aan ciyaal xaafa ahayn oo Soomaaliya joognay yaa nin dhalinyarada baan waxaan u bixinay maaragtay ciyaalka xaafada curadkooda galinka galabtiina anagu nala fariisan jiray habeenkiina odayaashu la fariisan jiray marka hadda waxa weeye ciyaalka xaafada curadkooda meeshii ahayd anagu artikuladan qornaa researchkan qornaa reportkan qornaa laakiin caawa waxa fadhiya qoraayaasha curadoodii baa fadhiyo fadumo buug bay qodhay maaragtay marka waxa nala joogta maaragtay curadii qoraayaasha yaa caawa nala jooga marka waxaan leenahay walaasheen fadumo aan u mahad celinno hal mar intaan hadalkayga sii guda galin aan dhahno fadumo waad mahadsan tahay horay u soco inta aan hal mar isla dhahno waana hurudnaa baan u malaynayaa fadumo waa mahadsan tahay horay u soco aan isla dhahno 1 2 3 fadumo waa mahadsan tahay horay u soco gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabdinajiib Cabdiraxmaan Salaad iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee dalka Uganda Siham Rooraye oo dhankooda kulankan ka hadlay ayaa bogaadin kadib sheegay inay garab istaagi doonaan qoraaga buugan loogu magac daray haweenka Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa qoraaga buuga Marwo Fadumo oo ruuxantii waxa ay aqoonteedii iyo cilmigeedii gelisay in ay haweenka Soomaaliyeed ay wax uga tagto wax qorto dadka iyagana ruuxantii waxa ay dad badan dhiirigelin ay u noqoto inay wax qoraan anaga ka ahaan Somali Student Union in Uganda ama gudoonka ardayda Soomaaliyeed waxaan cod dheer ruuxantii ku dhiirigelinaynaa qoraagu in ay buugaa kala qorto oo ruuxantii ardayda ay la wadaagto oo sidaana ruuxantii waxa ay marka kale buug la qorayo tala badan insha Allah laga geliyo waxaan marka bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad intii garab istaagtay intii caawisay intii maarata ruuxantii waxa fikrad iyo ruuxantii fan ku taageertay annaguna waan taageeri doonaa qoraalkeeda dambe iyo buugaagteeda dambe maadaama ay tahay haweentii u horeysay ee Uganda ah oo Soomaaliyeed oo buug qortay marka daas way aan ugu wacayo fastest buugeedana uu yahay kan loo baahan yahay han iyo higsi laakiin la rabo in aan anaga hankeena aad u qaadno qora fadumo oo ah qoraaga buugan haweenka Soomaaliyeed ee han iyo higsi ee lagu daafuray magaalada Kampala xarunta dalka Uganda oo gabagabada kulanka ka hadashay ayaa si kooban u sharaxday waxa uu ka hadlay buugan ay qortay buugaygu sidii afar cutub buu ka kooban yahay afarta cutubka u horeeya waa haweenka iyo doorkooda waxaan ku soo qaatay hooyada bulsho walba waxay ka kooban tahay qoysas isku tagay marka qoysaskaas ay xooganaadaan markasta oo qaab dhismeedkooda bulshadaas uu adkaado sidaa darteed ay isku waafaqsan yihiin in hooyadu tahay ruuxa ugu muhiimsan ee mujtamaca diyaarsan soo saara tixsugaanadaan ku cabirayo dareenkayga gabarnimo ayaa wixii leedahay anigoo soo koobaya inta kale ka dheehan doonto buugga hortiina yaala haweenku waa dugsigeena hooyo aan laga maarmin hiliyo waa garabkeena hooyo waa gurigeena marwada inugu haysa guriga marwada idinku haysa guriga hadii waa dhaqankeena dadka hanaasho oo hibeeya sidoo kale qodobadan ku soo qaatay waxa kamid ah doorka ay waxbarashadu ku leeyihiin haweenku waa hal doorka bulshooyinka adduunka gaar ahaan waa udubdhaxaadka ummadda Soomaaliyeed waa gabadha maanta iyo hooyada berito
haddii ay dumarka Soomaali u suurtagali lahayd xilli kasta iyo xaalad kasta ay ku nool yihiin inay wax bartaan waxay ka dhex muuqan lahaayeen hablaha dhigooda ay ku nool caalamka. Adnaasir Axmed Xaaji adnaasida warbaahinta SBC Kampala. wasiirka wasaaradda beeraha